kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaalka Ukraine iyo maxkamadda ICC ma awoodi doontaa in baaritaano ay ka sameyso wadanka Ruushka oo ka digay in dadka degan caasimadda Ukraine iyo Kiev oo haatan laga qaxayo xaaladda Zelensky oo aad u adkaanayso. Hogaamiyaha Iran oo sheegay xasarada Ukraine inay ka dambeyso dowladda Mareykanka. Iran iyo Brazil oo kor u qaadaya ganacsigooda kadib dagaalka ka socda wadanka Ukraine doonayana in dhaqaalahooda uu meel sare u tago ayaan daawadayaal warkeena kusoo qaadan doonaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan soo ku bilaabo qodobka ugu horeeya. Dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa waxa haatan noqonaya mid saameyn fara badan dhaliyay. dhowr saacadood ee lasoo dhaafay waxaa soo taraya eedeymaha Ruushka ee dambiyada dagaal ka geysanaya qaybo ka mid ah dalka Ukraine gaar ahaan magaalada Kharkiv ee ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ukraine. Eedeymaha ayaa inta badan kasoo yeeraya madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky, mas-uuliyiinta magaaladaasi iyo hay-adaha xuquuqul insaanka Amnesty International kuwaasi oo dhammaantoodba ku baaqaya in baaritaano lagu sameeyo weerarka Ruushka uu ka geystay magaaladaasi. Waxay sheegayaan Ruushka inuu duqeymo oo ku bartilmaameedsaday goob dad rayid ah ay degan yihiin oo ku yaala magaaladaasi. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa sheegtay in gantaalada Ruushka ay ku dhaceen dhismayaal ee la deganaa isla markaana taasi aan loo dulqaadanaynin. 3 dhismo oo ka kooban 5 dabaq ayaa ku burburay weerar gantaalo ah oo ka dhacay 3 saacadood ka hor sida lagu sheegay barta Facebook wasaaradda arrimaha gudaha wadanka Ukraine. balse Ruushka ayaa beeniyay in bartilmaameedsadeen guryo ay dad shacab ah ay degan yihiin. hase ahaatee maxkamadda ICC-da ee fadhigeedu yahay Hague ayaa sheegtay in baaritaano ay ku sameyn doonto suurtagalnimada Ruushka uu halkaasi ka geystay dambiyo dagaal. Dacwad oogaha maxkamadda Karim Khan ayaa howlwadanada maxkamadda ka codsaday inay soo aruuriyaan xogta ku saabsan weerarada Ruushka uu ka geystay magaalada Kharkiv, gaar ahaan cadeymaha muujinaya tacadiyada ay geysteen ciidamada Ruushka sida weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah. In ka badan 6,000 oo qof ayaa guud ahaan dalkaas Ukraine ka qaxay guryahooda sida ay sheegtay qaramada midoobay, halka in ka badan 160 qof oo rayid ah ay ku geeriyoodeen ay ku jiraan 20 caruur ah sida ay sheegtay hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay u qaabilsan. Ruushka ayaa sanadkii 2016 isaga baxay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC-da kadib markii madaxweyne Vladimir Putin uu ansixiyay in dalkaasi uu ka laabtay hanaanka ka mid noqoshada maxkamaddaasi. Arrintan ayaa dhalatay go-aanka maxkamadda ay qaadatay oo ah in baaritaano ay ku sameyn doonaan qabashadii Ruushka ee ku qasbeen gobolka Crimea. Ruushka ayaa sanadkii 2000 saxiixay heshiiska Roma ee lagu aasaasay maxkamaddaasi, balse waxa uu ka laabtay arrintaasi ka hor inta uusan ansixin xubinimadiisa, waxaana Ruushka uu ku biiray Mareykanka iyo wadamada kale ee ka gacan sareeya maxkamaddaasi. Maxkamadda ICC-da ayaa sidoo kale horaantii sanadkii 2016 amartay in baaritaano lagu sameeyo dagaalka sanadkii 2008 dhexmaray Ruushka iyo sidoo kale Georgia, gaar ahaan dagaalka ka dhacay South Ossetia. Dadka qaar ayaa sheegaya in Ruushka uusan weligiiba la shaqeynin maxkamaddaasi ay adkaan doonto fulinta awaamirta dacwad ooga Karim Khan, maadaama Moscow ay ka mid tahay wadamada ugu awooda badan caalamka isla markaana ay leedahay codka diidmada qayaxan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Arrintan ayaana imaaneysa xilli maalintii 6aad uu galay dagaalka xoogan ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegtay in ku dhawaad 75% ciidamada Ruushka la isugu keenay xuduudda Ukraine ay hadda ku sugan yihiin gudaha dalka Ukraine. ciidamada ugu badan ayaa haatan ku sugan 25 kiilomitir meel u jirta caasimadda Ukraine ee Kiev, sida ay horey u sheegeen saraakiisha reer galbeedka. ciidamada Ruushka ma sameyn doonaan horumar ay qorsheynayaan sababo la xiriira dhanka saadka iyo sidoo kale iska caabin xoogan oo ay kala kulmayaan ciidamada Ukraine. Mareykanka ayaa dhanka kale cambaareeyay tallaabada Ruushka oo heeganka sare uu ku geliyay awoodda nukleerka.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista madaxweyne Putin ay tahay mid loo baahan yahay, iyagoona intaa ku daray inay tahay kordhin khatarta gelinaysa xisaab xumida ka jirta dunida. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ku dhawaaqista madaxweyne Putin ay tahay mid aan loo baahnayn, iyagoona intaa ku daray inay tahay mid xaalad adag mar kale gelin karta dunida. Saraakiisha Pentagon ayaa sidoo kale ka digay in mowqifka hubka nuclear-ka ee Mareykanka ee hadda la bedelay iyo in kale. Dhanka kale, Midowga Yurub ayaa bilaabay cunaqabateyn aan horey loo arag oo ka dhan ah dadka iyo sidoo kale shirkadaha ugu awooda badan wadanka Ruushka. Isniintii waxa ay Midowga Yurub ay soo saareen liiska 26 qof oo doonaya inay cunaqabateyn ay saaraan, waxaana ka mid ah cunaqabateynada dadka lagu soo rogay xogayaha warfaafinta kriminaalka Dmitry Peskov iyo sidoo kale Alexander Benimark oo ah gudoomiyaha guddiga garoonka caalamiga ah ee Sheremetyevo ee Moscow. Waxaa sidoo kale ka mid ah Nikolai Sergeyevsky, madaxa shirkadaha Transneft oo ah shirkadda dhuumaha shidaalka. Dhibaatadan haatan Ruushka wajihi karto ayaa waxay u muuqanaysaa in carqalado adag ee dowladda Ruushka ay soo wajihi doonaan. Dhinaca kalena, daawadayaal, wadamada dunida siyaabo kala duwan ayay haatan kaga hadlayaan. Ugu yaraan 5 qof ayaa la dilay kadib markii ciidamada Ruushka ay ku garaaceen munaaradda telefishinka Kiev xusuusta Holocaust uguna weyn magaalada. Saraakiisha Ukraine ayaana sheegay kadib markii Ruushka uu ka digay in weerar sax ah uu ku qaadi doono caasimadda Ukraine. Taawarka TV-ga wadanka Ukraine ayaa geb ahaanba burburay. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in 5 qof ay ku dhinteen, 5 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka ka dhacay taawarka TV-ga oo ku yaala meel dhowr meel u jirta bartamaha Kiev, isla markaana wax yar u jirta qolka laga kontaroolo TV-ga iyo sidoo kale xarunta kontaroolka ayaa la garaacay, waxaana ugu yaraan qaar ka mid ah kanaalada Ukraine ay si kooban u joojiyeen baahinta sida saraakiisha ay sheegeen. Kadib madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, Andriy Yermenko, ayaa Facebookiisa ku sheegay in weerar xoogan oo gantaalo ah lagu qaaday dhulka oo ku taala dhismaha. Adduunka waxa uu micnaha uguma fadhiyo dhibaatadan haatan ka jirto wadanka Ukraine, inkastoo Ukraine ay dhibaato ay ka jirta. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxaya dunida, inkastoo wasaaradda difaaca ee Ruushka ay sheegtay in ay sii laba jibaari doonto howlgallada ay ka wada Ukraine. Volodymyr Zelensky ayaa haatan doonaya in go'aano lama filaan ah uu qaato, inkastoo dunida dhaqaalaheeda haatan hoos u dhac xoogan oo ku imaanayo. Lama ogasa wax walba sida ay isku bedeli karaan. Cabsi xoogan ayaa jirta. Dadka shacabka way baqayaan, inkastoo Mareykanka iyo dunida hadalkooda uu ku soo koobmay xayiraad dhanka cunaqabateynta oo kaliya. Guud ahaan, daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibayaal waa naga inta. Haddaba daawada, haddii aad janaalkeena la socoto, subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share iyo commentiga noogu dadaala.